Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan. Maanta iyo video cusub oo ka hadli doona dalka Zambia. Channelka subscribe si videoda like gare kumadna xagga hoose ku qor dalka Zambia ama Republic of Zambia. dalka Zambia magaciisa wuxuu ka qaatay webida afraad ee ugu dheer qaaradda Afrika ee loo yaqaan Zambian. dalka Zambia waa dal ku yaala koonfurta qaaradda Afrika. waa dal aan lahayn haybo. waqooyi waxaa ka xidheeya dalka Congo, waqooyi barina waxaa ka xidheeya dalka Tanzania, barina waxaa ka xidheeya dalka Malawi. Mozambique iyo dalka Zimbabwe waxay ka xidheeyaan koonfur. dalka Angolana wuxuu ka xidheeyaa galbeed. cabirka dalka Zambia waa 752,617 kiiloomitir oo iskuweer ah. tirada dadweynaha ku nool dalka Zambia sanadkii 2018 wuxuu ahaa 17,350,000 oo qof. caasimadda ama magaalo madaxda iyo magaalada ugu weyn dalka Zambia waxaa loo yaqaan Lukasa. diinta dadweynaha ku nool dalka Zambia boqolkii 95 waa Kristaan, xagga muslimiintu ay yihiin boqolkii 5 dadweynaha ku nool dalka. luqadda rasmiga ee dalka Zambia waa afka Ingiriisiga, xagga ay jiraan 70 af oo kala duwan oo dadweynaha dalkaasi ku hadlaan. lacagta laga isticmaalo dalka Zambia waxaa loo yaqaan kwacha. madaxweynaha dalka Zambia magaciisu waa Edgar Lungu. dalka Zambia xorriyadiisii wuxuu kala soo noqday gumaystihii Ingiriiska sanadkii 1964. dhaqaalaha dalka Zambia wuxuu ku tiirsan yahay xagga ay dhoofiso macdanta loo yaqaano kubarka. dalka Zambia waa dal ku caan xagga beeraha. wax soo saarkiisa ugu weyn dhinaca beeraha waxaa ka mid ah heedda iyo bunka iyo tubaakada. waxbarashada dalka Zambia waa bilaash da'da u dhaxaysa 7 jir ilaa 12 jir. xagga ardayda dhigata dugsiga hoose aad u badan tahay, laakiin ardayda dugsiga sare iyo jaamacadaha aad iyo aad u yar tahay. caafimaadka dalka Zambia aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay oo horumar u gaadhay xagga dalalka jaarka looga imaado caafimaad. dalka Zambia waa dalalka ugu yar qaaradda Afrika aanu dhex marin dagaal sokeeye. channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan wuxuu kuu rajaynayaa daawasho wacan iyo mid qiimo leh.
channelka subscribe si videoda like garee, commentna xagga hoose ku qor.